الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان أصحابتا إي أحبابتا أن جعلها ملك استواء الجوكتان إلهي سبحانه وتعالى واجبات النصاري ويوم القيامة ويدينيو وأين أنكفك ينكرين أياجره إنينو حق يسو الشيغنو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلهي سبحانه وتعالى وحل يكوى قرية وحا إلهي سبحانه وتعالى دوميس أسودجي وكتابك إلهي markuu ilaahay cadeeyay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu waadix ka dhigay si cad kitaabku wax walba nolola ilaahay ugu soo dejiyay oo wanaaga la gaari karo dadka ilaahay baray kitaabka inay qariyaan maaha waa inay ummadooda iyo dadkooda gaarsiiyaan wax kalena korkooda ma saarna waajibkooda waxa saaran waxa weeye inay gutaan ma ala rasuuli illa al balaagh qofka yani rasuulka إلهي سبحانه وتعالى وصدره وحال قرب هذا كإنه قارسي إني قاتاني إناني قادن إساق مسؤولية دي سماها إساق وحال ربا سوى ناكسن إنه أقوتو أو قارسيو رسالة دي إلهي سبحانه وتعالى وصفري ولماذا يددك أقوانت له يددك حقرتك أهنا وحال قرب إني يددك أشيغان وحي إلهي سودجي يوحى أو ناكسن dadku inay qaataan iyo inaanay qaadanna iyaga xilkooda ma aha mana saarna marka raali ka ahaada hadaan waxyaalo badan aan soo celceliyo naftaydan doonaya inaan ku badbaadsado yawmal qiyaama nabigu kaleey salaatu salaam markii uu risaalada dadka gaarsiiyo wuxuu dhihi jiray ala hal ballaqtu allahumma fashhad war ma idin gaarsiiyay ilaahay oo marxaati ka noqo inaan gaarsiiyay رسالتي halkaas ku dhamaatay mas'uuliyadiisu halkaas ku dhamaatay ilaahayna marxaati buu gashaday inuu gaarsiiyay marka qofka daaciga ah ama risaalada gudanayana waa sidaas oo kale nabiga kaleey salaam wadadiisa buu ala hal ballaqtu allahumma fashhad way ilaahu marxaati ka noqo shalay waxaan ka hadlay Soomaali waxaan iri saddex qodob bay u baahan tahay saddex arimood oo Soomaaliya u baahan tahay si ay adduunyo aakhiraba ugu badbaado in la xusuusiyo waa waajib waana ka soo sheekiyay labadii qodob oo hore oo ahaa saddexda arin hadaan idin xusuusiyo Soomaaliya u baahan tahay maanta ugu baahay qabto waa koow inay ilaahay la heshiiso oo ilaahay u noqoto oo dambiyada ay gashay ka toobad keento oo saxdo oo hagaajiso oo toosiso ilaahay inay la heshiiso iyada dhexdeedana ay markaa heshiiso iyada dhexdeedana dulmigii kala gaaray iyo dhibaatadii kala gaartay ay ka heshiiso inta isu timaado qofkii wax lagu leeyahayna uu ka garbaxo kii wax sheeganayaana uu gartiisa sheegto oo cadayntiisa la yimaado ama kan kale u dhaarto hawshana lagu kala baxo ama la iscafiyo ama sulxi la sameeyo oo de wixii laga heshiiyo wa sulxu khayr فأصلحوا بينهما وأصلحوا ذات بينكم بإله سبحانه وتعالى أولياء مركز تاسونا إلى هذا أنا أوجانتي كله مردعين ومضى الصومالي دحية كما مردعين وحجردات سياسيين وجقدونا وقبائل كجرنجرة كدكته ومقعية الريارها أي كمديهين يعني كدون تهجقوا يحول يوحي ربان وكدون تمقع وميلها كل ما يدلال كلا كل ما يباجره oo jagooyinkooda siyaasadeed u kulmeeyay iyagu waxay heli lahaayeen laakiin ummadii Soomaaliyeed ee wax kala gaareen ee muslimka ahayd intay isu timi wali heshiis ma kala gaarin meelo waa dhici karta qabiil baan maqalnaa laba reerood oo isku dhow oo masan heshiinayay hadda sidii daraada aan ka maqlayay idaacadaha iyo meelaha iyo shir laba reer oo mudug agteed degan oo maaragtay ka shiray odayaashoodii iyo dadkoodii isu yimaadeen مصالحة نوع عسى لا يراها تاس أيا لا يراها دتكو إني يسوي مادان جيد هوستيز يسوي Soomaali sidii aan jirtay ee ka heshiiso marka waxaan ku horta in Ilaahay la heshiiso Soomaaliya dambi baynu galnay
وانا كسو شيكي شلي شرع عجلكي ورا نقو دنبيadaas la galay kitaabkii Ilaahay oo la xoray shariicadii Ilaahay la diiday ilaa iyo dawladii dimuqraadiga ahayd iyo dawladii doorashada ahayd kadibna dawladii kacaanka ahayd culimadii la laayay kitaabkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala la diiday shariicadii dad muslimaan ahayd la diiday in la isku xukumo oo la raaco diintii oo la diriray waqtiyada qaar kood la diriray salaadii oo la diriray cibaadadii oo la diriray xijaabkii oo la diriray waxa soo dhamay dawladii kacaanka iyo waqtiyada way dhaceen kadibna waxa dhacday dulmi badan oo la isu geystay oo dadkii Soomaaliyeed dhexdoodii ay dagaalameen oo dagaalo ehliya dhaceen oo la isdhacay oo la isboobay oo la isdilay oo dhiig badan la kala galay la daadiyay dhulka lagu daadiyay dhiig badan oo dhulka lagu daadiyay oo Soomaaliya ay daadisay French ma daadin amxaarna ma daadin Soomaali ka daadisay oo dhulka ka dharjisay dhiigoodii dadkaas dhiigoodii dhulka uu galay arrinkoodii wali meel lama saarin Ilaahay ma ilaawin Ilaahayna way u xisaabsan yihiin ruux muslim ah oo ashahaadanaya oo tukanaya dhiigiisu hadur maaha ya dhiigiisu hadur maaha Ilaahayna uu ka caroodaa caraw weyn buu Ilaahay ka caroodaa dhiig xaq darro lagu daadiyo wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay marka taasna waa in laga heshiiyo waxaan iri markii Ilaahay la heshiiyo oo dadku dhexdooda iyagu heshiiyaan qodobka saddexaad u baahan tahay marka waa dawladnimadaasuna waxay ku dhisantaa oo dhista dad heshiis ah ummad heshiis ah is ogol wax isla ogol wax ku heshiisay dadka ay hogaaminayana iyadu marka doorato si xor ah oo cadaalad ah oo xaq ah u doorata oo xor ah cid ku khasbin oo cid u soo yeerin oo dibad looga keenin oo cid kale to ayaan ku soo fardin oo laaluush iyo musuqmaasuq aan ku dhisnayn ee dadku xortooda intay codkooda ku doortaan yiraahdaan qofkan baan dooran oo aanu rabnaa inay arrimaha noo maamulaan ilaa dadku dawlad kama maarmaan dawladnimo lagama maarmo la'aanteedna adduunku ma socdo laakiin waa inay dadku iyagu rabitaankooda ay markaa dadka ku doortaan oo ku xushaan oo dadka amaanada u leh dadka wanaaga u leh haddii ay markaa dadkaas ku xumaadaan iska bedelaan oo dhahan kanuna ma anfacayo waa bedelnay la xisaabtamaan waxay kala xisaabtamayaan ay noqonayaan waxay u dirsadeen ilaan qofkan yaani wax loo mas'uuliyadda loo dhiibay waa qof wax la raaciyay shaqa loo dirsaday shaqadii haduu ka soo bixi waayana waa la bedelayaa dadku doorashada ku xigta ayay tuurayaan bannaankii ku tuurayaan mar dambena ma soo noqonayo taariikhdana ma soo gelayo halkaas ay marka lagu kala baxaya marka saddexda qodob baa loo baahan maanta cinwaan baan soo qoray waxaan iri Kismaayo iyo Dubai lacalla ina yaabantihiin maxaa dhacay aan Kismaayo iyo Dubai u soo qaatay waxaan u soo qaatay qodobkan aan ka hadlayo oo dawlad maxay qabataa xukuumad maxay qabataa hoggaan muxuu qabtaa nidaamku muxuu qabanayaa sidee wuxuu qabanayaa ayaan muqaarana yar ama isbarbar dhig yar aan ka sameynay waa yaab waxaan xusuustaa igu horeysay horta magaalada Dubai la yiraahdo ee imaaraadka carabta ku taala 7 imaaro way sidaad garanaysaan 7 imaaradood way isu tagay الإمارات العربية المتحدة بالله هذا شو تجي رتض وضعس أبو ظبي يا دبي يا شارجة يا عمان يا رأس الخيمة يا أم القوين يا فجيرة تضبط سواي تدوى أمير باكتري وشو تجين ومدوبين دولة الإمارات العربية المتحدة بالستين لكن مدو الباب ما ملكي سهوسنا وليه مدو قويني وأبو ظبي وقولنا دول باحد وين وقولنا بلارن بترول كله xukunka iyo siyaasadda laga maamulo itixaadka meeshiisa laga maamulo halkaas waa mid labaad oo xagga xukuumadda ku soo xigtana waa Dubai magaalada Dubai laakiin hadda adduunku wuxuu yaqaanaa Dubai buu yaqaanaa badanaaba lixda kale xataa Abu Dhabi xataa bal ilaawa Dubai baa la yaqaanaa Dubai maxaa dhacay Dubai maxaa dhacay ani markii ugu horeysay magaceeda aan maqlo niman aanu qaraabanahay baa xoolo geystay nin aan walaalo ahayn baa wuxuu ka shaqeynayay arigaas sidii Dubai loo geyn lahaa waa 1972 imaaraadka carabiyada waxa la sameeyay 1971 baa isu taga kow ay sameeyeen Dubai iyo Abu Dhabi
marka dadkaas reer Qandala iyo reer bariga dhinacaas doonyaha leh oo ariga iyo maydiga faleenka iyo maydiga lubaanta yani dhoofiye iyo waxay geyn jireen Dubai markii hore Yemen bay geyn jireen markii dambena Dubai ba furantay Dubai ba doonyaha marka tagi jireen muddo dheer ay soo socon jireen dhowr iyo 10 cisho waagaas horta igu horeysay anoo nin yar ah waxaan anigu ku faraxsanaa kaliya shaatiyada iyo surweelada iyo alaabta iyo la iga keenayo qofkan Dubai buu ka yimi ma sha Allah alaab badan buu soo gaday suuq meeshu waa suuqyo dukaamadeeda waxeeda wax yaala badaaicda taala adduunka taala ayaa laga sheekeynayay markaas ay igu horeysay horta maqalkeeda hayeeshee berigaas Soomaaliyana dawladda kacaanka ka jirtay dawladnimadii Soomaaliya oo 60kii soo bilaabatay xornimada qaadatay baa socotay Soomaaliya dawlad marka kor u socoto weyn bay ahayd nidaamka marka yani hadba joogaya marna nidaam dimuqraadiya marna nidaam military laakiin dawladnimada Soomaaliyeed dawladnimadu waxay ahayd yani qaran iyo dal iyo dad iyo ummad midaysan la yaqaano meel lagu yaqaano xuduudeeda la yaqaano oo maaragtay dawladnimo waxay ahayd fiican oo meel fiican maraysa dhinacyo badan marka Dubai waxa kaga horeysay Soomaaliya aan waxa xustaa dadkaas aanu qaraabada ahayn qaarkood oo doonyaha ariga geysanay Soomaalida inay tujaarta Dubai ay ka codsan jireen inay la shirkoobaan dhulka kula shirkoobaan maadaama ay Soomaalidaanu lacag haystaan adduunka tilka ayaa nudaawulaha bayna الناس ragaan garanayo oo aanu qaraabo ahayn ba qaarkood waxay dhihi jireen odayaashaas reer Dubai ganacsatada ahi walaalow adaa lacag haysta kaash aniyo Soomaaliga ila shirkoow dhulkan Dubai aan meelahan gadano dhulkan aan gadano oo waxba furmaayay markaas adduunba furmaayay waxaana madax ka ahaa markaas amiirka hadda jooga Mohammed bin Rashid abihis Rashid bin Said Al Maktoum nin aragti dheer odayaashii hore abu ahaa waa dhintay 1990kii uu dhintay Allah u naxariisto annagu marka dal de waxaan nahay dhisan qaran dhisan maxaan ku sheegaa bari hore iskuul leeyahay airport waa leeyahay nidaam waa leeyahay diyaaradaha tagaha Yurub ka yimaadaan oo tagaan laakiin Dubai markaas wali xaaladu waa iska soo bilbilow bay ahayd hadda Dubai maxay tahay horta Dubai maxaa tahay aan Dubai ku sheego horta Dubai imaarada la yiraahdo masaaxadeeda ama dhul baaxadeedkeedu waa 4000 oo kiiloomitir oo laaban ama square ah sida la yiraahdo 4000 oo kiiloomitir oo jibaaran yani square kilometer 4000 oo kiiloomitir numberka meel ku qoro marka si kale hadaa u dhigto 4000 oo kiiloomitir waxa weeye 80 kiiloomitir oo dherer ah 80 kiiloomitir oo dherer ah iyo 50 kiiloomitir oo ballac ah weeye 50 by 80 400 4000 4000 oo kiiloomitir waaye oo square kilometer waa masaaxada imaarada Dubai xeebteedu waa xeeb yar oo kooban oo iska khaliiji ah waa dhul saxara ah baad ma leh buuro ma leh xoolo nool ma leh xoolaha ariga anaga u dhoofin jirnay mar walba ilaa haddana u dhoofinaa geel iyo ari iyo lo waxa ma jiraan xoogaa geel ay meelaha marmar maalan oo dhaqdaan ma jiro waa maayn beero ma leh waa saxara waaye beero ma jiro webi ma leh موارد كلا تو معادن يأدون مجرو بترول وحير أبو ظبي بقى بترول بدل دبي وحير هي شارقة كوا كلا وحوي ساس ماله وهي دبي واتاس جنبها هوسة وكالي مركا أنا أقول حنري جنبها هوسة وحنو سوقاتي وقبل كم إذا قبل هذا صوماليا ما هو صوماليا أردن طبعا صوماليا إمارات العربية المتحدة هذه اللي يراهدو إمارات كأردن مركا اللي يسكت ضرو بقبل صوماليا لم يدنقونيسا لكن باحدة دولكا دبي iyo jubada hoosaan isu qiyaasayay oo aan comparison waxa la yiraahdo ama muqaarana carabiga ama isbarbar dhigid ileen isbarbar dhigid waa nooc cilmiga kamid ah oo aqoonta adduunka waxyaalaha marka la rabo in la fahmo daraasaat ijtimaaciya ama arrimaha bulshada
waxaa la daraaseeyaa wadanka juqraafiyadiisa, waxaa la daraaseeyaa siyaasadiisa, waxaa la daraaseeyaa hogaamintiisa, waxaa la daraaseeyaa bulshadiisa, dhaqaalihiisa, mawaaridiisa, resourceskiisa, waxaasoo dhan baa la daraaseeyaa oo dhinac walba laga eega, duruufaha siyaasiga ku xeeran baa la eega. Kabacdi ayaa marka waxaa kuu soo baxaya inaad fahamto xaggee wax ka jiraan. Aniga su'aalaan idin weydiiyey marka xaggee wax ka jiraan, su'aalaan is weydiinay mugta Kismaayo iyo Dubai xaggee maxaa qaldan, xaggee wax ka jiraan baan mugta. Marka kow aan ku bilowno macluumaadka koowaad. jubbada hoose waxaan u irinaa masalan waa hadda dawlad goboleed soo maaha. Dawlad goboleed waliba jubbada hoose kaliya ma aha ee jubbada dhexe ku jirto, qaybo kale ku jirto ayaa dawladda la yiraahdo Jubbaland masalan hadda oo stateyada ama dawlad goboleedyada hadda Soomaaliya kamida. laakiin aniga waxaan ba soo qaatay gobol kamida dawlad goboleedka gobol kamida oo ah jubbada hoose. Ma ku jirto jubbada dhexe, ma ku jirto shabeellada hoose haddii wax ka gaaraan, ma ku jirto gada haddii dhinacyo kaga jirto, ma ku jirto oo dawlad Puntland yani Jubbaland raacsan. waxaasoo dhan ma ku anigu jubbada hoose kaliya Kismaayo iyo agaarkeeda yani khusaysan. Kismaayo ama jubbada hoose halka Dubai ay ka tahay masaaxadeedu, xukuumadda Dubai ay masaaxadeeda ama imaarada Dubai ama dawladda xukuumadda Dubai oo kamid ah imaaraadka Carabiga, halka 4000 oo dhulkeeda dhan ay haysataa ee Rashid bin Said Al Maktoum uu ka talin jiray, haddana Mohammed bin Rashid Al Maktoum uu ka taliyo. waxa weeye 4000 oo kilomitir oo square sanary. jubbada hoose waa imisa buugaagta u noqdo jubbada hoose oo Kismaayo agaarkeeda waa imisa? waa 61,000 oo square kilometer. 61,000 oo square kilometer. labada tiro waxaan idin ka codsanayaa inaad isku dhinac qorto. 4,000 meel ku qor square kilometer, 61,000 dhinaca kale ku qor. waa comparative baan sameynayna. qaliyo warqad soo qaado. 61,000 oo square kilometer waaye jubbada hoose. jubbada hoose kaliya waayahay. macnaha si kale haddaan kugu dhigo waxa weeye dhererkeedu wuxuu noqonayaa jubbada hoose 300 oo kilometer. 300 oo kilometer gaarigu imisuu jaraa? wuxuu jari karaa 100 hadduu ku socdo 3 saacadood uu jaraya. 120 hadduu ku socdo laami fiican uu jirona wuxuu jarayaa 300 oo kilometer taqriiban. يعني wuxuu jarayaa 2 saac iyo bar. waayahay ballacana waxay noqonaysaa marka masaaxadaasu ballac waxay noqonaysaa 200 oo kilometer. marka 200 by 300 halkaas ba waxa ka soo bixi kara 60,000 oo square kilometer. 60 wayba ka badan tahay, waa 60,000. waayahay halka ay dhig. Dubai waxaan iri imaarada Dubai malaha xeeb dheer oo weyn. xeebta Kismaayo jubbada hoose waxay ka soo bilaabataa xuduudda hadda Kenya iyo anaga noo dhigan Ras Kamboni iyo magaalada Kiunga la yiraahdo ee u dambaysa u soo horeysa ama inoo soo xigta xuduud ahaan dhinaca Kenya. Ras Kamboni meesha u dambaysa inaga ah degmada u dambaysa waxa ku dhegan degmada la yiraahdo Kiunga ee Kenya. waa isku dhegan yihiin. halkaas ka soo bilow irifkaas kor u soo soco ilaa shabeellada hoose oo Baraawe agagaarkeeda aad ka timaado masaaxa aan ka yarayn 400 oo kilometer oo dherer ah oo badda kaliya ah ayay Jubbaland jubbada hoose haysataa. ka soco xagga xeebta. jubbada hoose waxay leedahay webiga la yiraahdo Jubba ee weyn ayaa soo dhex mara ilaa uu goob weyn kaga shubo Indian Ocean-ka uu shubo webiga ballaaran oo marar badan baad aragteen dawlad goboleedyada iyo markay ku shirayaan Kismaayo inay isku soo sawiraan meesha xeebta. aad bay u mahadsan yihiin inay isku soo sawiraan. webigaas uu ku yaala Dubai webiga male, waa meel oomana ah oo saxara ah. jubbada hoose waxay la dheer tahay beero
aad u hodan u ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hodannimo siiyey wax walbi ka baxaan oo haddaad saas ugu rido qamadiga soo baxayo bariiska soo tuur sonkorta soo tuur maxaan kuu sheegay digirta ku tuur soo tuur yaanyada soo tuur tufaax soo tuur maxaan kuu sheegaa moosk soo tuur wax walba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay bifadlihi wa manihi uu nasiib u siiyey dadka Soomaalida meesha degan iyo maamulkooda iyo hogaantooda ayuu siiyey ilaahay subxaanahu dhaxal siiyey adduun la wadaaga ma jiro cid la wadaagtaa ma jirto ilaahay baa siiyey ilaahay baa wax qaybiya deeqiis huwa alladhi yuqassimu al-arzaq ilaahay baa qaybiya marka beerahaas iyo dhulka barwaaqada ah ee jiqda ah ee nicmada ah Dubai ma ku taalo waa saxra cad oo nag ah geed aanu ku oolay waxa dhan ma waaba 80 kilomitir oo saxra ah 80 kilomitir waaye oo saasa iyo saan sheegnay 50 kilomitir gaarigu hal saac buu ku soo marayaa gees ila gees haddii dheer rasaal loo dhigo Dubai waaye dhanka kale waxaan ku yiri wali bay leedahay tan uma leh beeray leedahay tan uma leh barwaaqay roob bay leedahay tan uma leh xoolay leedahay nooc walba loo saddexda meesi ah tan uma leh geel iyo ari iyo lo baa jooga Jubbada Hoose midna kama joogo Kismaayo waa in Soomaaliya laga keeno India laga keeno Pakistan laga keeno Australia laga keeno New Zealand laga keeno hilibkay cuni lahaayeen kan uma baahan halkan ilaahay waa ku beeray ilaahay baa ku beeray geel iyo ari iyo lo isdhinac daaqaysa taala waaye nicmooyin kale oo badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey baanan hadda gelihayn waayo waxaan rabaa warka inaan u soo dhaco su'aasha xagee wax ka qaldan yihiin maxaa dhacay qaylada iyo qaxarka iyo wareerka iyo dagaalka iyo dhibta iyo buuqa iyo qarrabta iyo isdaba wareeg iyo isdaba orodka maxaa keenay nicmadan taala waayahay marka labadii meelood oo saas kala ah horta asaaska waa saas meel yar oo magaalada Kismaayo iyo hareeraheeda kaliya ah iyo gobolka Jubbada Hoose meel wabiye leh oo biyo leh oo wara leh oo adduun leh meel aan waxba lahayn meel bad dheer leh oo kalluun iyo nicmooyin kale ka buuxaan aan mid aan lahayn meel xoolihii oo dhan ay buuxaan mid aan lahayn intaas marka laga soo tago waxa dhacaysa hadana waaqicu waa wax kala bedelan maxaan aragnaa laakiin anaga waxaan aragnaa meeshaas yarta ah ee 80 kilomitir dadkeeda populationkeedu waa 220,000 taqriiban ihsaad ku dambeeyay 2009 Dubai muwaadiniinta imaaraatiyiinta ah ama reer Dubai ah ee ku nool muwaadiniinta ku nool dalka u dhashay waa 220,000 تقريبا أول صدق كن تقريبا وحافظ مقدشة كم بذا تقريبا إسلام مرهان تاسنا وحا كنا المجال دبي 6 مليون زيادة 4 مليون تقريبا أنت كلا أجنبي بقول كي بس عشان يحوجا وأجنبي دي بدها كيمي هو ضدك كنا نول ضدك ماشي سكنا كنا نول taas waa arin macquul ah basiida waaba yartahay waxyaalo macluumo kale to aynu ku darno halka inaga dhulkan iska balaartay Jubbaland afan raali ahada Jubbaland bano Jubbada Hoose halka aan leeyahay 61,000 oo square kilometer oo barwaaqo iyo wabiyo iyo xoolo iyo wax walbiisaan yihiin ceegaagan waana haddana waa cidla dad ma joogo oo dadna ma soo maro kor dad ka yimaadana ma soo maraan oo Afrikada kale wax ka yimaado oo soo mara oo marin u soo marana ma jiraan dekeday leeyihiin wax kale ma soo degaan bani aadamka adduunkuna wuxuu ku tashadaa isaga isku tashada fiiri adigu dukaan marka hadda aad ka furato Nairobi yaa ku tashanaysaa bani aadamkaas dhulka marayaad ku tashanaysaa Soomaa isli xaafadda la yiraahdo ee Nairobi waa laga taajiray Soomaalidu khayr bayna ka heshay Soomaa ninba dukaan lahaa ninba daara lahaa daaru dhistay adduun buu dhistay iyay ka taajireen
yay ka taajireen ma Soomaali bay ka taajireen ma Soomaali baa wax ka gadata kaliya yayin dadka ay ka faa'iidayaan ilaa iyo Konga looga imanayaa alaabta laga iibsanayaa Islii Rwanda laga imanayaa alaabta laga iibsanayaa dukaanka yaala Islii waxa laga imanayaa Uganda dukaanka yaala Islii waxa laga imanayaa Burundi dukaanka yaala Islii ee masjidka sigiska u dhow ayaa wax laga iibsanayaa maxaa dhacay bani aadamku waa isku nool yahay bani aadamku waxbuu kala bedeshaa alaabtan uu Soomaaligu iibinay xagee ka keenay China ka keenay Dubai buu ka keenay isagu ma sameeyeen Pakistan buu ka keenay Turkigu ka keenay idan bal fiiri Turki iyo Soomaali iyo Ugandes iyo Kenyati iyo Burundis iyo Rwandese iyo Congo ayaa wax kala iibsanaya shilinkoodii waa ku dhex wareegaya kanu ka iibsanaya kanu kaas ka iibinaya kanu alaabtu u baahnaa uu kanu keenaya Soomaaligana keenaya kana ku sii iibinaya kanu ku sii maxaa dhacay bani aadamku waa isku tashadaa jubbada hoose midalan waana hadda kaligeed marka aan jubbada hoose kaligeed maaha gobolka bari baa la mid ah shabeellada hoose la mid ah shabeellada dhexe la mid ah hiiraan baa la mid ah galguduud baa la mid ah mudug baa la mid ah nugaal baa la mid ah sanaag baa la mid ah bari baa la mid ah dhammaan waa isku mid walba iskiis bani aadam kalena uu la shaqaysan karaa hadda dawlad goboleed hadda sida ay u qaybsantahay u qaybisana Jubbaland waa dad adduunka kale inay ku tashato waay maaha Soomaali kaliya maxaan ku sheegaa maxay ahayd dhexda hadda ku jirtay idaaradka galmudug waxa weeye kaligeed iskuma tashanayso Puntland kaligeed iskuma tashanayso Somaliland iyada hadda dawlad waxaanu nahay gaar ah tiri waana hadalkooda anagu waa ixtiraamaya hadalkooda iyo maaragtay go'aankooda waxa weeye waxaan nahay dawlad gooniyeed iyaduna waa kaligeed waa isku filan tahay mid walba adduunka kale ba adduunku bani aadamku isaga isku tashada marka Dubai waxaan iri dadkeedu waa 220,000 dhulkeedu waa 4,000 oo kilomitir square laakiin xagee bay ka keentay sidan inay noqoto xagee bay ka keentay maxaa dhacay sirtaan idin sheegaya hal qodob waaye reerkan hadda Dubai xukuma reer Rashid bin Maktoum ilaa iyo 1700 iyo siyaado xukumayeen meesha imaarada aan ka soo qaadno ilaa hadda saddex facan ka soo qaadno amiirka hadda jooga Mohammed bin Rashid abihiis Rashid bin Said al-Maktoum iyo awowihiis Said al-Maktoum waxay lahaayeen vision iyo aragti soo hogaankii Dubai maaha iyagu soo duruuftu wax iska maaragtay meel saxara ah oo cidla ah oo la fadhiyo soo maaha odagaas Said bin Maktoum wiilkiisuna uu ka sii qaatay oo Rashid bin Said al-Maktoum isagana uu ka sii qaatay wiilkiisa oo Mohammed bin Rashid al-Maktoum oo ninka hadda jooga waxay ka mid isnaa hal vision halka vision muxuu ahaa magaaladan inagu waa yarnahay xoolo badan ma haysano adduun badan ma haysano lacag ma haysano maxaan ku tashanaynaa bani aadamka kale waxa uu haystaan ku tashanaynaa taasan ka noolaanaynaa dadkeenana ka noolaynayna oo sidee uga noolaanaynaa magaaladan deked yar waaye markaas deked aad u yar oo alaabta turka lagu soo dejiyo waaye turka lagu soo dejiyaa qofka turki sida ceel macaan oo kale aad ma arki jirteen ma soo gaarteen ceel macaan iyo deked dabiici yani markabku xaggaas u istaagaya alaabta waxa lagu soo daldalayaa laashash yar doomo yar marka waxay yiraahdaan saas iyadoo waxaan ku tashanaynaa dadka kale aan ku tashanaynaa bani aadam kale meeshaan annaga waxaan ka dhigaynaa qofku waxba xorriyad wax soo degso waxa gana dhoofso haye ana maxay waxba ka qaadi ma cashuurna kaama rabo maxaa dhacay free port waa saalan kaalay bas waxa la kala qaadanaya khidmadda bas
khidmadda kirada alaabta qofkan uu ku soo galayo gurigu kireysanayo alaabtu iibsanayo waxa laga faa'iideeyaa marka meeshii 10 doonyood ay iman lahayd waxa imanaysa 100 doonyood meel aan canshuur iyo qajajac iyo halkan nidaam ku xir ama jooji istaaji jamaari ka qaad custom ka qaad xagga ka yeel aan lahayn oo lagu yiri waa free board waa banaan tahay keenso alaabtaada degso si nabad ah iibso haddana dib u rar haddaad doonto dalka waxba ha gelinin haddaad doonto waxba ha ka iibinin haddaad doonto free waada waa banaan tahay muxuu rabaa dadkan soconaya bani aadamka ilan kala faa'iideystay isagu dadna ma hayo xoolana ma hayo bani aadamka kala jeebkooda ku tashaday fikirku kaas ah kow fikirka labaad oo ay ku tashadeen wuxuu ahaa annagu dad yar baan nahay oo aan tiro badan lahayn صح وي marka adduunka kale oo naga tiro badan oo 100 milyan ah isagaan waxaan u sameeynaa meesha wax ku kala bedelan lahaa orodka isku dhaafi lahaa oo sidee taas ku dhacaysaa bani aadamku soo Japan kama imanayo soo China kama imanayo bariga soo Australia kama imanayo soo Korea kama imanayo oo soo uma socdo galbeedka kale oo fog soo uma socdo Ingiriis soo uma socdo Jarmal soo uma socdo maxaan ku sheegay ilaa iyo Mareykan ilaa iyo Yurub meelay ku nastaan oo safarta ku kala bedeshaan oo sameeynayna anaga hayo maxaan ka faa'iideynaa bani aadamkana soo maraya nasiib maraya transitka isaan ka faa'iideysanaa bis wax kale la'aan kama marka waxay dhisteen deked weyn iyo airport weyn iyaga 100 jeer buu ka weeyahay imaarada oo dhan midna waa rubceed hadii masaafo aan loo fiiro laakiin airport weyn طبعا هذا كما شكينا ايربور كان سيدو usoo tatawuray airportka Dubai ee aad aragtaan ee 10 airport ama 10 garoon ee adduunka ugu halisan hal maalin saan kuma noqon استراتيجي iyo waxa ka dambeeya استراتيجي iyo talo iyo ra'yi laakiin falsafada arintan ka dambeysay wuxuu ku sheegayaa ninka hadda amiirka ka ah ee la yiraahdo Mohammed bin Rashid Al Maktoum ee amiirka ka ah oo dadkiina wax akhrinaya oo siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka iyo dalalka inay sidee dalalku isu bedelaan ka waramaya jecel inay bartaan si dalkooda ay uga waxayaan way akhrin karaan laba kitaab oo khaasatan oo isagu mudakaraadkiisa ku qoray ama fikirkiisa uu ku qoray taariikhdii Dubai iyo waxay soo martay mid waxa la yiraahdaa ru'yati my vision bal mid la yiraahdaa مننا waxa la yiraahdaa 50 aaman ama 50 sano isbedeladii ku dhacay imaarada Dubai iyo oo taariikhdaas kamid ah marka laakiin saddex arrin buu ku soo khulaaseeyay oo uu yiri falsafada Dubai iyo sida dhismaheeda loo sameeyay bay ku fadhidaa airportkan ha noqdo diyaaradan hadda adduunka number 1 ka ha noqoto dekedan Jabal Ali ha noqoto oo maartay de wax ka soo degaan oo shirkadan DB World magacaasa laga yaabaa inaynu naqaano inagu markii hore Mawani Dubai baa la dhihi jiray Mawani Dubai dekedaha Dubai dekeda Mina Rashid dekedii hore ahayd yarayd ay dhisteen berigii hore ayay maamuli jirtay kadibna khibrad bay kasbadeen way ballaaratay sida dekedaha loo maamulo shirkadii way ballaaratay dekeda kale oo adduunka 78 dekedood oo adduunka mid Mareykan iyo Yurub iyo Aasiya iyo Latin America ayay maamushaa DB World ma aha kaliya aw malaynina inay dekeda dhowr oo meelaha maamusho waxayna kamid tahay 10 dekedood Jabal Ali gan ay maamusha ee adduunka ugu weyn Middle East ama bariga dhexena oo wadamadan Carabta ilaa iyo Masar ilaa iyo Morocco ilaa meel walba gaar wadamadan Carabaha iyo intaan dhexe oo dhan iyo Aasiyadan dhexe oo dhan waa dekeda koowaad ee ugu weyn waaye Jabal Ali waa dekeda koowaad number 1 marka waxaan oo dhan taariikhdeeda dib isaga dhigay meeshii yarayd ee jubbada hoose ka yarayd ee jubbada hoose aadka uga yarayd ee aan resource-ga lahayn waxay ku fikirtay iyadu waa dad yar tahay waana dhul yar tahay
بني آدم ككل حوله سأن كفائديستو ايربور كان dadkeedu iyadu waa 220 sanadkiina waxa mara airport ka Dubai 9 milyan oo dad ah baa mara 9 milyan oo dad ah ayaa transit iyo adeegsasho airport kan ay adeegsadaan ku mara idan wixii loo dhigtay waa loo dhigtay weelka awjeeda inka doonaya Japan inuu ka yimaado halku kuna saan 2 saac uu jooga halku xagee maraysa transit Dubai aan sii maray transit aan Dubai ku ah xagee u socda Makka u socda Jeddah u socda London u socda xagee u socda waxa uu dhigtay very simple dekaduna waa sidoo kale containerka adiga Soomaaliga ah kaaga imanaya ku imanaya Mombasa kaaga soo degaya waxa laga yaabaa ma ogid China kaaga yimi ama wuxuu kaaga yimi Korea ama wuxuu kaaga yimi baabuur way waxay kaaga timi meel heblaay ka American bay kaaga timi German bay kaaga timi ya Jabal Ali bay soo maraysaa inta badan ma laga yaabaa ma ogid Jabal Ali lacagtaas rusuntum buu ka qaadanaya wax kale kama custom xataa kama qaadanay dadka alaabta keensanaya oo haddana dhoofsanaya waa free bay idin tahay bulay taas bay marka ku najaheen hawarihi laakiin intaas waxa ka muhiimsan waxa weeye intaas waxa soo saaray adduunku kuma kala hormaro dhul ballaarni adduunku kuma kala hormaro kuma kala tago walaalayaal dad tira badi kaliya inkastoo dadku muhiim yahay oo resource-ga ugu muhiimsan bani aadamku u yahay laakiin adduunku kuma kala tago oo kuma kala hormaro oo dadna ma dib dhaco oo meel ma fadhiyaan oo baryo lama fadhiyaan oo ma sugayaan xogaa yar oo heedi soo turto oo maanta dhan ku dirsan yihiin sida Soomaalida iyo gobolada hadda waxay isku hayaan oo lagu dagaalamaya wallahi wixii la keenay anaga waxna la kama siin wallahi ma aratay deeqdi maxaan ku sheegay deeqdi maxaan ku sheegaa maxay la Jubbaland waxa xanaaqsan tahay galmudug waxa xanaaqsan tahay haye Puntland waxa xanaaqsan maxaa waxa xanaaqsan hadda anaga nasiibka yaga anaga beesha caalamkana waxaan ka codsanayna beesha ma aratay adduunkana waxaan ka rabnaa hada قالي أدونك إيمانينا أنك وإحنا لك مسين وحي إيماني قيبت يدي أنك نوما إيمان بالإسقوائية حسبنا الله ونعم الوكيل أدونك مركز الوينان معها نيك ساسله وحكو فرديا ذهب كأذا أركت كدل فرديا وحكو دل فرديا حولها أذا أركت وحكو دل فرديا دلك أذا أركت إنتو ليكي بكو دل فرديا قفك ساس أورانيا مركز أدونكو معها دل برناهرني ما أهدبي جبلان با كدل وين سرتو معها حقي وحكي قلدينهن وحكي قلدينهن ميلنا ضد با كون نول ميلنا ضد كوما نولا جوابتو ايدو كوبن ميلنا بني آدم با جوغا فكرايا ميلنا بني آدم ما جوغا فكرايا ميل waxa jooga hogaan aragti leh oo wax ka fikiraya inuu isaguna noolaado dalkan iyo dadkanuna noolaadaan meeshan iyo waxa nicmadan Ilaahay siiyana uu ka faa'iideysto habeen iyo maalin u fikiraya baa jooga oo ummadaha kalena wax ka siiyo meelna waxa jooga meelna dad ma joogaan dhigi karaade waaba ku iriba dad ma joogaan ku marka dhul aan dad lahayn oo nicmo leh oo aan dad haysan dhulku kaligiis isma wado ya Jubbaland waligeed ma malab iyo nicmaha ahaato haddaanay dad lahayn meesha taagnaanaysa nicmadu meesha iska cagaagaysa ama dad baa dhacaya ama qaar baa xoogaa meelaha ka dafdafaya ama kuwa maaragtay wax ka guranaya kuwa maaragtay dhacaya xoogaa waxba laga guranaya laakiin nicmadii meesha taalay ee laga yaabo Afrika oo dhan inay ka badnaan lahayd haddaanay dad haysan iyadu meesha kama dhaqaaqayso waxaan ku soo khatimayaa waan sii wadi doonaa insha Allah taala hadalka laakiin waxaan hadda ku soo khatimayaa caaw kitaabkiisa Maxamed bin Rashid baan waxaan ka akhriyay wuxuu yiri aabahay Rashid bin Maktum saddex darsi oo ilaa hadda aan ku amal falo baan ka faa'iideystay buu yiri waa koow darsiga koowaad wuxuu ahaa buu yiri al mustashaarin la taliyayaal wuxuu yiri iyadoon waxaan dekadahan iyo adduunkan iyo waxaan jirin ayuu aabahay wuxuu soo ururin jiray raga ninka muhandiska ah ninka aqoon-yahanka ah ninka caalimka ah ninka maaragtay muhandiska ah oo wax garanaya wax dhisa kan maaragtay muthaqafka ah waxaan iri waxaan maxaad dadkan u soo ururinaysaa wuxuu yiri maandow marka aad dadka caqliga leh la tashato oo urursato caqligaaga 100 caqli baad ku kordhinaysaa
maalin walbana waxbaad baranaysaa buu igu yiri maalin walbana waxbaad baranaysaa qofka hogaamiyahana aqoonta kama weynaado la budda inuu maalin walba wax barto marka dadkan waxaan u soo ururiyay adigana aan rabaa inaad ka barato inaad aqligooda ka faa'iideysato wuxuu leeyahay marka isagoo hadalka tacliiqinaya maxamed bin Rashid waxaan arkay buu yiri dawlado badan oo waaweyn oo la baaba'ay la taliyayaasha xun iyo munaafiqiinta ay urursadaan ay hareerahooda dhigaan waxay la jabeen dawlado la jabeen oo niman madaxa waaweyn oo magac lahaa ay la baaba'een oo dalalkoodina la baaba'een la taliyayaal xun xun oo munaafiqiin u ah oo nacam waad sacantahay u sheegaan aan wax talaakin idan koo wuxuu yiri horta la taliyayaal wanaagsan waa inuu qofka hogaamiyaha dhul doonaya inuu ka faa'iideeyo kana faa'iideysto waa inuu dad la taliyo aqoon leh waa inuu leeyahay labo wuxuu igu yiri buu yiri darsi kale oo amaliyan ii baray buu ahaaye waa inuu dhalinyarada iyo dadka la shaqeynaya dadka u wanaagsan u xushaa shaqada la qabanayo dadka fiican ee iyaguna hogaamiyayaal ah shay walba waa ina u xulataa ciidanka waa ina hogaamiye u xulataa beerta waa ina hogaamiye u xulataa badda waa ina hogaamiye u xulataa wadada dhisme waa ina hogaamiye u xulataa ya ma ujeedaa dhinac walba marka wuxuu yiri maandow qofka waa inuu isku hareereeyaa dad kafaa leh oo karti leh oo aqoon leh ya oo iyaguna hogaamiyayaal ah maxaa dhacay cilmiga hogaaminta dadku markay baranayaan leadership-ka iyo waxay dhahaan the good leaders dadka hogaamiyayaasha wanaagsani waxay dhalaan hogaamiyayaal bay dhalaan hogaamiyaha xunina wuxuu dhalaa nacamlayaal buu dhalaa hogaamiyayaal ma dhalo dad dameer dhaan raacday ah buu dhaliyaa oo nacamlaya laakiin ma dhalo maxaa dhacay ma jecla qof isaga ka karti badan ka aqli badan ka wax qabad badan inuu soo baxo hareerihiisa yimaado ma jecla hogaamiyaha xumi tacbaanka ah wuxuu rabaa dad ka wada hooseeya oo ka wada liita oo madax aan soo qaadin oo nacam wax walba yiraahda inuu hareerihiisa ay joogaan kaas waa jabay ummadiisuna way la jabtay qodobka saddexaadna wuxuu yiri abahay ma jeclayn siyaasadaha iyo gelitaanka siyaasadda iyo iska daba wareegeeda iyo hadalka badan iyo waxaan badan ma jeclayn wuxuu jeclaa dhaqaalaha mashaariicda projectiyada fulinteeda arrimahaas ka hadli jiray markii aan arrinta weydiin wuxuu ugu yiri markaan iri adduunka yaa hogaamiya wuxuu ugu yiri adduunka dadka dhaqaalaha leh baa hogaamiya maandow adduunka dadka dhaqaalaha haysta ayaa hogaamiya iyagana dadka hogaaminta dhabta ah adduunka hadaad eegtana waa saas way Japan hadda ma xoog buu adduunka ku hogaamiya xoog miyo adduunka hogaamiya dagaalkii labaad adduunka 1945 ayaa baalasha laga rif waana la jabiyay magaaladiisana atomic bank baa lagu dhiftay Hiroshima iyo Nagasaki waana la kala diray qawaacid baana Mareykanku ka samaystay ilaa hadda joogtay ma garatay oo laga ilaalinayo ciidan inuu yeesho muxuu adduunka sanka muxuu kaga tolay Japan dhaqaale iyo sanco Jarmal sidoo kale waa la jabiyay Hitler kadib 1945 Jarmal waa la jabiyay dhulka la samay waa la fariisay qawaacid baa isagana laga samaystay askar baa military baa la dul dhigay si aan mar dambe u dhaqaaqin military u sameeyay muxuu adduunku qabsaday hadda adduunku ugu taliya Jarmal dhaqaale China ilaa wadan dhow hadda 30 sano ka 40 sano ka wadan faqiir ay ahayd maxay adduunka hadda ku haysataa oo ay ku haysataa maxoog iyo military adduunka ku qabsatay ma dhaqaale adduunka ku qabsatay dhaqaale marka dhaqaale iyo siyaasaddu ma kala haraan dhaqaalaha siyaasad fiican baa maamusha siyaasadda xooga iyo powerkeeduna dhaqaalu ku dhisan yahay waxaan xusuustaa inuu yiri Dr. Mahathir adduunku wuxuu dhageystaa ninkii ama power leh ama dhaqaale leh labada qof buu adduunku dhageystaa buu yiri cid kale ma dhageysto Maxamed bin Rashidna wuxuu ninkan Dubai hadda xukumo wuxuu yiri adduunku wuxuu albaabadiisa u furaa qofka yaqaan waxa uu doonayo isagu marka waa hogaamiyaha wax laga rabo waxa uu doonayo waa inuu yaqaana marka arrinka saddexaad wuxuu yiri wuxuu dhaqaalaha marka la taliyayaal wanaagsan dadka faa'alaha oo la adeegsado oo fiican oo karti leh
iyo dhaqaalaha iyo kaabiyaasha dhaqaale iyo khidmadda dadka adeegyadooda iyo noloshooda in kor loo soo qaado oo laga shaqeeyo waa saddexda arrin oo ay falsafada ku dhisan tahay buu yiri Dubai ayna meeshan ku soo gaartay hadda inay maaragtay adduunka wax badan ay ka ciyaarto iyadoo meesha yar aan sheegnay Jubaland waxay ku soo laabmaysaa 15 jeer bay ku soo laabmaysaa bimaana 15 Dubai ayaa ka dhex samaysmi kara hadii aqligeedu uu yimaado ayaa Jubaland ka dhex samaysmi kara Jubaland kaligeed waay ma afan Jubada hoose baan dhila Jubada hoose waxa ka samaysmi kara 15 Dubai model oo Dubai oo kale taa ka samaysmi kara masaaxa ahaan iyo dhul ahaan barwaaqo iyo khayrna Jubada hoose dheer aaw inta hayga ekaato insha Allah taala waxaan ka hadli doonaa oo marka ku xiga aan ku dhisi doonaa war dadkiinan Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed baan la hadlayaa hadda anigu waxaan dhageystaa yani waxa dalkiina ka socda iyo ha qabaal anaga reerebel mashaaqad habreer xaqii qaateen ha reerebel taas salsi ana nimid baa soo sharaxay xule ha dastuurkii lama dhamay kada lama yeel doorashadii ilaa qub iyo qac waa ina dhacda saan waa ina yeesha kan waxa ay ka hadlayaan dhan waa hadal mid oranaya ma maqlaysid war muwaadinkii dhul uu maro buu la yahay wadadii mari lahaa baan anigu sameeynaya qorshahayguna wax kale ma midahay war waa dhinteen dadkan Soomaaliyeed way baabeen xabadii kliniga ahayd bay la yihiin isbitaal male neefsi male gabadha meel ku umusho male ilmuhu wuxuu oo bahalka male war nus milyan ba caasimada ku nool aan $1 maalintii heli karin war aniga waxa hamiga igu haya waa dadkan noloshooda sideen kor ugu soo qaada war dhalinyaradan badaha galaysa oo dalka ka qaxaysa sideen ugu sameeyaa shaqo ugu abuuraa ay ka shaqeeyaan qorshahaygu waa kan masaanicdaanan dhisaya qaabkaanan u dhisaya shaqo qaabkaanan u abuuraya sanadka u horeeya intaasoo kun oo shaqaale baan rabnaa inay qorshayagu yahay inay shaqeeyaan intaasoo kun oo kiiloomitir baan rabnaa inay dhismaan intaasoo wado iyo gobol baan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay isu furmaan intaasoo isbitaal baan rabaa inay ka dhismaano meesha India iyo Dubai iyo Kenya iyo Turkiga la aadayo halkan aan rabaa in lagu shubo ganacsatadii waa joogtaa dadka aqliga lahaa waa joogan dhakhaatiirtii waa joogan injineeradii waa joogan dadka Soomaaliyeed waa joogan maxaa ka maqan hogaamin baa maqan waa hogaamin la'aan taasay la baabaaday dad aragti leh male siyaasiyiin baqtiyay oo naftooda iyo siyaasadooda iyo kursigooda kaliya say u ilaashadaan maayna wax kale aan hami kale aan sidin ayaa ummadan baabi'isay iyana waa iska daba socotaa qabiil reer hebel reer hebel واحد reer hebel maxaa waxdash hada reer hebel baad ka hadlaysa reer hebel muxuu ku sii kaxiyaayo miskiinka gaajad u dhimat arada u dhimat koronto la'aana u dhimat caafimaad la'aana u dhimat cunto la'aana u dhimat shaqo la'aana u dhimat iskool la'aana u dhimat jaamacad la'aana u dhimat adduunka ka harta xagee ku noosha ani waan yaaba xageen ku noolna adduunka kuma noolin horta anu adduunka kuma noolin baan leh siyaasiyiinta Soomaaliya hadda ka hadlaaya ee joogana adduunka kuma noola wallahi alladhi la ilaha ghayru adduunka inaanay ku noolayn maba ku noolaba qarni kale ku nool yihiin maba ku noolaba waaqicooda kama hayaan sheeko qisa oo qosol la idin sheega oo aan ka akhriyay kitaabka ninkan reer Dubai wuxuu yiri Qadaafi baa ila soo hadlay hay telefoon ii soo dir Maxamed Rashid niyo waxaan rabaa Dubai di Afrika inaan ka sameeyo Libya haye Dubai di Afrika inaan ka sameeyo Libya waxaan la u bogay waxa dhisteen dhulka airportada maaragtay la isku dhaafayo kumanyaal diyaaradood adduun baa isku dhaafayaan maalintii waxaan rabaa halkan inaad modelka aan ka faa'iideysto adiga la faa'iideysaan haye masaasa diyaar baan ku yiri waaye waxaan u diray buu yiri mudiirka maktabkayga waxay dhahaan chief of staff-ka oo kale ma garanaysaa chief of staff-kayga baan u diray Libya Muammar Gaddafi labadii maalmood u horeysay lama kulmeen hotelku nigu iska joogay kadib uu la kulmay markuu la kulmay buu internet buu fiirinayaa aan waxba ka garanay oo kala socdo ala kulli xaal xir waxaan rabnaa
inaan maaragtay meeshaan ka dhigno waxaan rabnaa inaan istismaar keensataan oo halkan aan soo maalgashataan oo waxyaalahaas u ka hadluu yiri calaa kulli xaal riboodkii buu ninkii igu soo celiyey buu ribood qoran buu ii keenay riboodkii qornaa oo ii keenay waxaan ka fahmay meesha inay iska tahay hadale rabitaan go'aan aragti khuddo qorshe qof raba waxaan inuu ka daba tago oo dhameeyo oo fuliyo inaanay meesha ka muuqan baa iiga muuqatay buu waxaan isiri buu yiri ninkan warkiisa sugine adigu bal tago soo hubso waan dhoofay buu diyaaradan qaatay Liibiya ka digay Muammar Gaddafi u tagay hayeeshee inta aanan odaga la kulmin waxaan jeclahay buu magaalada inaan soo maro bal horta meelaha badanaaba markaan tagana waa darsi kamida darsiyada bani aadamku waa kala faa'iideysta hogaaminta magaalada waxaan jeclahay meel hadaan imaado buu magaalada inaan soo maro dadka Dubai tagana way og yihiin Maxamed bin Rashid hogaamintiisa inay kamid tahay xafiis wasaaradeed buu iska imaanaya isagoo marada wajiga u duuban yahay oo aan cidina ka la socon xafiiska aroortii uu imanaa halka saac subaxnimo wasaaradda maaliyaddu imanaya masalan maxkamaddu imanaya wuxuu imanayaa meesha belediyada munishibiyada dawladda hoos wuu soo gelayaa meeluhu iska wareegaya markuu soo dhamaysto tuurkiisa buu managerka u imanaya kii xafiiska ka maqnaa kii laaluushka qaadanayay kii dadka daahinayay kii shaqada qabanayay on the spot buu kula xisaabtamaya markaasuu qaarna cayrinaya qaarna shaqada ka fariisanaya marka waa wax uu sameeyo way yaqaaniin dadka Dubai soo maray way yaqaanaan ila Soomaali badan Dubai bay degan tahay weyn xayna ku leedahay ganacsi bay ku leedahay ummadahaas laga faa'iideystay bay kamid tahay iyaguna waa ka faa'iideystaan wuxuu yiri markaan Liibiya tagay ninkii baan u tagay waxaan sameeyay Ilaahay amarkiis magaaladii baan ku soo wareegay inta aanan officially iyo protocol iyo askarku daba ordays iyo wasiirku daba orday waxaas taan qaan bal keligay inaan baxo oo magaalada aan soo maro laba qof oo kale aan ka xista magaalada ku soo wareegay Trablustii qadiimka ahayd meelaha soo maray maxaan soo arkay buu ana mar rabo hadhow inta qaarir been la yeesho waana sida madaxda badana oo riyada ku nool oo qusuurtooda iyo villooyinkooda waaweyn intay ku nool yihiin ummad aan ka warhay oo shacab aan ka warhay oo dad aan ka warhay oo nolosha masaakiinta aan ka warhay oo jidadka baabaa aan ka warhay oo isbitaalada lagu baabaa aan ka warhay oo dadku waxay ku nool yihiin aan ka warhay ku huf godad bay ku nool yihiin dadkiisu markaasuu jaakad iyo soo qaadanaya iyo necktie isku soo xiraya oo meelaha wareegaya oo meelaha maraya wadkaana walaal maxaa hada nolosha ku noosha hawshan ma miskiin ma iska tagtido dambiga maxaa ku korsanaysa wuxuu yiri waa soo maray meelaha soo maray markaan meelihii ku soo wareegay waxaan soo arkay magaalo aad moodo yani adduun kale ba inay tahay war heede war wadanka qaniga ah oo petrol kale maxay tahay dadka noloshoodu saan tahay maxay tahay meelahan maarta korontada iyo qashinkii isdhex yaal maxay tahay jidadkan burbursan iyo waxaan baaba'san maxay tahay nolosha saan ah magaalada saan wallahi wuxuu yiri noloshii Dubai kontomaadkii 1960s ay ku noolayd xataa ma aanan arkin buu yiri meesha maxay tahay waxaas kadibna anigoo warbixin practically soo arkay baan u imi ay ma arabta wallahi Dubai kala tarabaa inaan meeshan ka sameeyo oo ala kulli xaal muddan wadnay buu yiri markii dambena waxa noo cadaatay inaanay rabitaan iyo vision ka dambeeya aanu jirin sheekadii markaas aan iska xirnay buu marka waxa weeye walaalayaal jubbada hoose Dubai waa xaafad kamida weeye Dubai masaaxa ahaan khayraad ahaan xoolo ahaan jawi ahaan dhul ahaan barwaaqo ahaan waxa weeye xaafad yar oo kamida waaye masaaxadana waa idin sheegay 15 jeer bay ku soo jibaarantaa jubbada hoose kaligeed gobolkaas iyo Dubai ku soo jibaarma laakiin meelna dad baa jooga oo waa Dubai meelna waa Soomaaliya oo dad baan joogin oo jubbada hoose ay kamid tahay mar kale insha Allah taala arimo badan ayaan ka hadli doonaa waana waxaan anigu yani ka fahmay diinta intaan ka fahmay dadka noloshooda inaan ka hadalno waaye maxay ku nool yihiin maxay cunaan maxay cabaan maxaa caafimaadkoodu yahay nabadgelyadoodu maxay tahay wax kale iigu imaan maysaan diintaana taa sheegaysa qiso walba qisay leedahay diyaaradan hadda la imaaraadka annaga waxa lagu hayaa
ما وحبان قبان كرنا وكل نك سياسي الله هذا أنا وح شقي سادة هذا وح قبانين أو جد لسيه أو إسبتال لسيه أو ضد كان نلاش هذي كرو سوقاده أو عافيمات كذي كرو سوقاده أو وضعي جد هذا مسمين أو بيئة هذا مسمين أو كرنتا هذا مسمين أو أدونك جران أي وقت كان أو ديارة أي وقت هذا مسمين أو وضنك هذا هرمرينين أو يجي هذا كشقي سينين أو يجي هذا كقيب جلينين إني هرمر كان كل السمايان إلا ضدكم يجي السماية maxaad ka shaqaysaa ma ii sheegtid marka maxaan ku doortay aniga maxaa ii qabataa marka maxaa ii qabanaysaa ma indhahan kugu kuulanaya inda kuul ma ii tahay aniga inda kuul ima tiidin aniga dadka Soomaaliyeed inda kuul uma tiidin dadkina siyaasiyiinta ah khidmad baa laydin doortay khidmadii haddaan laydin ka helin waa inaad guryihiin aad aadaan ma u adkaysan karno ما هو أتكيسن كرنو طبعا سنة 20 سنة سنة أنا كنت ما هو أتكيسن كرنو وإذا الشيء يا مقلة سيف عنه دقيست ما هو أتكيسنينو بس كسومالية ما هو أتكيسنايا الدون كي كهرين وضد نمضوا دي بعد بابي إسن وجري تانكو دي بعد بابي إسن وقلت كي كنا ليهن ماشي الدون كهرين ولا لهين صورة قلمها أريكا صورة قلمها marka qiso walba waxba lama qaban karo maxaa dhax loo qaban way maxaa dhacay maxaa loo joogaa meesha hadaan wax la qabanayn goorma wax la qabtaa maxaa dhacay limaada maxaa hortaagan ma dadka ku soo celisaan dadka ma u sheegtaan ma dadka Soomaaliyeed baa hortaagan dhulkoodu inuu wax noqdo noloshooda inuu wax noqoto ma Soomaalida hortaagan كينا بنانك كينا أنا وما أنا أرجع وركاس ما ديدنا سومالي كينا دحدة لك صار دحدقة make them on board كل صار ترين كذا صار لا تشو صفريس هركن مركز أنا أرجع عدي دني مجرتيني وحقبسته لكن وين ودد الله مرا مركا وحوال قبن كرا ولا ريال دولنا إلهي ونسي فرصتنا إلهي ونسي adduunkuna waxbuu kala bartaa anigu hadalka waxaan u soo jeedinayaa ninka kursiga ku fadhiya anigu malihi kaale kursiga iga kaco anigu aan ku fariisto malihi waxaan leeyahay waxaan aan sheegay aduu sameey wax iga tus ka qabo dadka noloshooda wax ka bedel dadka noloshooda caafimaadkooda ka bedel war ma ku sheegan kartaan hal cisbitaal ma ku sheegan kartaan war hal jid ma ku sheegan kartaan war jubbada hoose iyo banaadir baa socon kari la maxaa dhacay u kala xiran yihiin dadku maxaa dhacay u kala xiran yihiin 480 kilomitir waay limaada oo intaasoo milyan oo dad ay ku nooshahay oo ku noolaan lahayd maxaa dhacay maxaa hortaagan jidka in la fuliyo nabadgelyo la'aan hortaan nabadgelyo maxaa u keeni weydeen maxaa ka shaqeynaysaan maxaa soo hadal ma waxa adduunka waxa la rabaa aqliga galaya in la isu keeno marka tusaalayaal baan u soo qaadi doonaa diyaaradii see lagu dhis airportkii see lagu dhis jidkii sidee lagu dhis isbitaalkii sidee lagu dhis heshiisiintii dadka iyo isfahamkoodii maxaa lagu dhis kulligeed waxa weeye arrimo cad adduunkuna uu sameeyay annaga kaligeen kuma noolin meel adduunka ka go'an adduunkan ku dhex noolnahay adduunka haddaan ku dhex nool lahayna adduunku isaga kala faa'iideysta adduunku isaga tijaaribta kala qaata dubaydan hadda aan ka sheekeynaya tijaaribta waxay ka soo qaadatay Singapore waxay ka soo qaadatay China waxay ka soo qaadatay Europe waxay ka soo qaadatay Ireland waxay ka soo qaadatay Melbourne waxay ka soo qaadatay fikrad bay ka soo faa'iideystay bal ku yaaba aan idin sheego nugtadan ku soo xiro diyaaradan la yiraahdo Emirates kulligeen intiina badan waa raacdaan hadda diyaarad marka Dubai u socoto haga u socoto Turkiga u socoto xajka u socoto Emirates diyaarad Emirates la yiraahdo Emirates كون يسقال بقول يشان يسديتك أفر يسديتك يا ما أين لهين كارير ما أين لهين ديار ما أين لهين دبي ما أين لهين ديار بل أضاقي راشد ها وحكا عطصدي تضبطني آخر كده ديارات دي بريتش ايرويز أو أدون كدي لها أصلا يسات بريتش ايرويز إنجليزكو بوحو ka codsaday walaalayaalow hal khad noogu fura dubay inuu yimaado markaas ay yiraahdeen oo dhaqaalahan fiirinay steady baan sameynay hal flight kama sameyn karno walaalayaalow
flight waxaan rabaa Dubai aad ka sameysaan oo maaragtay dadka geeya Hindiya ama geeya Kuwait ama meel geeya noo sameeya ma soo mari karnayna qofku markuu wax rabo wataan ilaa qofku markuu wax rabay ka go'an tahay he knows what he want wuxuu rabo waa yaqaan qofka qaydka wuxuu rabo waa inuu yaqaan wuxuu yiri waxay yiraahdeen diyaaraddu isma bixinayso maxaa dhacay rakaabka aanu ka helayno Dubai ka waran rakaabka Dubai aan ka helayno oo raaci doona oo intii geenaya kuma filna ma taqaana wuxuu ugu jawaabay wuxuu yiri anaa bixinaya diyaaradda inta ka dhiman laakiin flight-ka fura marka iyagu diyaarad ma laha Dubai diyaarad ma leh annaga diyaarad lahayn Soomaaliya Airlines iyagu diyaarad ma lahayn wuxuu yiri fura flight-ka fura laakiin wixii ka dhinaada aniga bixinaya diyaaradda wixii ka dhiman aan bixinaya sidii baa diyaaradda lagu furay kadibna diyaarado kale oo badan baa branches ka samaystay oo flight-yadoodii inay yimaadaan ay bilaabeen ka soco kadibna waxay ku tashadeen inay diyaarad sameeyaan ma taqaanaa ku dhimaan diyaaradda Emirates waxa weeye diyaarad ma lahayn fariiq buu u diray koox buu u diray daraasiisa waxa la yiraahdaa qofka hogaamiyahay waxa uu rabo ayuu yaqaan laakiin wax walba isagu ma yaqaan qofka hogaamiyahay engineer maaha dhakhtar maaha pilot maaha maxaan ku sheegaa dhaqaalayahan maaha laakiin wuxuu rabo wuu yaqaan airport baan rabaa dadkeedaan heli deked baan rabaa dadkeedaan heli ya kalluunkaan rabaa in la soo saaro dadkiisaan heli dhaqaalaha rabaa halkan in laga abuuro suuqan dadkiisaan heli wuxuu rabuu yaqaan marka waxa uu yeeray ninkii khidmada airport sameyn jiray wuxuu yiri waxaan rabaa diyaarad Dubai ay leedahay in la sameeyo waxay yiraahdeen bal daraasa aan ka soo sameeyno study waaya study-gina soo sameeya isbuucaan diisiye soo noqdo study-gu soo celiyo study-ga way keeneen waxay dhahan waa macquul in la sameeyo maxaad u baahantiin $10 milyan baan u baahanahay inaan bilowno mashruuca iyo shirkadda ay flight-keeda bilowno muddo imisa u baahantiin 6 biloodaan u baahanahay in flight-ka u horeeyo u dhaqaaqo dhowr meelood aan ku bilaabaynaa flight-ka oo dibadaha dabcan wadan gudihiis ma balahaba wadan ma jira gudihiis waa magaalo inaga maartay kismaayo aad iyo gada aad iyo internal iyo domestic iyo international ma balaha Dubai waa international kaliya bas domestic ma jiro saa dhulba ma jire markaas wuxuu yiri waaya 10 milyan baa u baahantiin 10 milyan hal shilin kuma daraayo yiri waa inaad ku dhaqaajisaan mashruuc waaya ilaahay idinku dhaariye markay siyaasiyiinteenu oranayaan waxa ma qaban karno doorashooyinka tan hadda soo socotana ay rabaan 100 milyan inay ku kharash gareeyaan tii ka horeysana 100 milyan ay ku kharash gareeyeen oo iyagu kuraastooda ay ku kharash gareeyeen ma waxaas ay oranaysaan dalba ka dhacaya ma waxaas ay oranaysaan dalbi ka fikirayaan 100 milyan ka badan baa ku baxda doorashooyinkooda gobolada iyo kuwa federaalka la yiraahdo it's nothing ilaahay aqli buu nasiiyay been yaan la isu sheegay 10 milyan baa diyaaradda Imaaraadka lagu bilaabay 10 milyan diyaaradda Emirates maanta adduunka number 1 ka $10 million buu maxamed Raashid ku bilaabay wuxuu yiri soo sameeyay waaya maxay ku bilaabeen laba diyaaradood bay waxay ka soo kireysteen PIA ma taqaana waa Pakistan International Airlines waa shirkadaha ugu horeeyay qadiimka ah shirkadda diyaaradaha ee Pakistan leedahay PIA Pakistan International Airlines bay waxay ka soo kireysteen laba diyaaradood only 2 airplanes laba diyaaradood bay ka soo kireysteen ranjigii baa laga qaaday waa la bedelay magacyada iyo ranjiga iyo waxaad ku samaysaa dhib male no problem company kale ku xir shirkad kale ku xir adduun kale ku xir istilahaadku wax dhiba ma laha wax inay dhaqaaqaan oo aad wax leedahay baa muhiim ah shirkadii saasay ku bilaabatay waxay ku bilaabatay laba diyaaradood oo kira ah maaha la iibsaday kiro waaye ya oo laga soo iibsaday laga soo kireystay diyaaradda Pakistan ranjiga laga geliyay magac maxaan u bixinaa Dubai Airman u bixinaa maxaan ku sheegaa Fly Airman u bixinaa waxaan u bixinaa Emirates magacii nationalka qaranka bay iyagu ugu horeeyeen qolada Abu Dhabi oo siyaasadda iyagu xukunta reer Zayed Nahyan haystaan iyaga ugu horeeyay reer Dubai magacii ugu horeeyay Emirates magacii Imaaraadka qaateen qaranka
idan waxay noqotay diyaaradii qaranka laakiin Dubai baa iska leh lama wadaagaan Fujairah lama laha Sharjah lama laha Abu Dhabi lama laha maxaan ku sheegaa lama wadaagaan toddobada imaaradood oo kale Dubai baa lahayd investment ugu samaysay laakiin waxay yiraahdeen waa taasuna waa darsi kale aqliyada lagu maamulaya ma noqonayso public company ma noqonayso shirkad dawladdu leedahay maya shirkad private asset loo maamulaya wuxuuna yiri ninka Dubai jooga aqliyada Dubai lagu maamulaa waa as a company sida shirkad oo kale toba loo maamulaa shirkadaha khaaska ah private ka ah way ka kafaa badan yihiin adduunka oo dhan baa laga og yahay way ka shaqo fiican yihiin way ka hanaan fiican yihiin maxaan ku sheegay shirkadaha dawladdu leedahay waayo ninka dawladda u shaqeynaya mushaarkiisa bisha aakhirkeedu iska qaadanaya waxaan dawlad baa leh shaqo kuma lihi waa la baabi'inaya marka shirkadii waxa loo maamulay qaab yani private ah waa loo maamulay dee sanado kadib sanad walba waxay keenaysaa rabix maanta dee in ku dhow 1000 diyaaradood ay leeyihiin maanta 1000 diyaaradood iyadu leedahay shirkadu leedahay number 1 adduunka shahaadadeeda loo ogol yahay adduunka meelaha falaatiyada ay tagto yani dadka ay qaadayso war dadkan waxaan idin yiri iyagoo dhanba waa 200,000 ilaahan kugu dhaariyay flight-ka ay Dubayna waxa ka baxa oo London kaligeed u baxa ama India kaligeed u baxda maalintii 50 flight baa India u baxaysa kaliya India kaliya u baxaysa 50 flight Mumbai buu socdaa halkan Chennai buu socdaa halkan wuxuu socdaa ma Hyderabad buu socdaa halkan wuxuu hatta magaalooyinkoodii iyo dhulkoodii oo aan Air India ka shaqaysan karin bay ka shaqaysteen waxa aqli leys dheeriya Soomaa marka maxay oranay bani aadamku adeeg u baahan yahay adeeg hada u sameeyso lacagtu ku keeni adeer hagu maxaa ku tusanaysaa marka adduunku isaga isku tashada isagaana wax kala faa'iideysta إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه أمضان أي براركتو ولا ليال هردان ككان صومالي هردان ككان قبل هالدان حنحون المال تقول وريجيسا أربعة والله يابا مسكح وضع والله يابا ويقول سو قرية أنا فلان يا فلان ما تاجرت هبل ما تاجرت ورا أذر ضلبان كهالينا أمضان كهال أديك مستقبل كان كهالينا قرن بان كهالينا ومد أدونك إنا النقطة كم من فيجر نمبر كم من أدونك إنا النقطة كهالينا أديك أنا واحد تاجنت أدول كوستيس تاجنت روقدة تاجنت كسوكع روقدة كسوكع أو كفكر مستوى إمو سا ضل أدسنا سا نور أدسنا وبتكلم صوص على الجنريشن هذا سبع وياشان أم بلونه from today ما هنقدم دقنينا قاب كذي سا وكنا أن كفكرنو سني ما أنه بس كحد شقيسينه الدون كان إجنو قل انظروا ما في السماوات والأرض دول كفيرية الدون كفيرية سيء نولي الدونكو يا الدونكو ساس وكلا بدشة مصالح حديثة أما أريد الدكده أو الدكده هذا دو نمبر 1 تاعي إذا رفت يد واقع سكره سيدابا روتردام لوغا سو كيني سيدابا سنغابور لو جاي سيدابا شنغهاي او تagtay سيدابا دبي ugu soo weynaatay sheega kaman ka hadli doono way insha Allah taala magaalo kasta oo xeebaha ah oo Soomaaliyana waxay u sharaxan tahay inay Dubai ka weynaato oo waliba ka fiicnaato oo waliba ka istiraatiijisan tahay bal ilaahan kugu dhaariyay hadda waxaad nagala hadlaysaan siyaasi ahaan aniga DB World waa internet DB World dekada imaamusho dhulka imaamusho waa idin sheegay gobolka bari جبل هوس وكوي هاي هذا بنتلاند دن كما أراني أجويا بنتلاند دن بفرت اللوجو يريا فرت ما هذا اللوجو فصانا اللورنا كاله سياسيون كاله هذا أنت كاله نيك هو يريا لوك أديك على هيستو قبل كبري كل جسوا تضباطهم كن سكوير كيلومتر وي حيبه وحاستا صدح بدا ريد انديا يو خليج عدن يو حاستا عرب سي بدا عربتا خليج كادا يو حاستا انديان اوش صدح دبا قبل اسكو حاستا مجرو انا هين قبل كبري صوماليا مجرو هذا حاستا خليج كميان عربهم كميان ما حاستا كل قد أما واحد كل يالان ميديترينيان أما واحد كل يالان ريد سي بدا عص أما واحد كل يالان بدا عربتا أما واحد كل يالان خليجك صدح بد إيش جغرافيا سياسيا كان استراتيجي يو هاي ودن كايسلا صدح بدود ودمدان هريريهن idin ku dhow saddex badood haysta ayuu yahay Turkiya ugu soo dhow oo iyada Black Sea iyo badan isku xiraysa ma garanaysa oo Bosforku khaliijka loo marayo uu yahay waana meelaha istiraatiijiga ka kasbatay Istanbul
يا مركب ولا ليال أدونك ساسو فكرية فكر كينا كورس وقاضة مسكحدينا كورس وقاضة مستقبل كينا كورس وقاضة وبد كينا يعني كور فكرة سياسة وصوماليا وحنا وراني ملك هذه حنماي وحنا كامر ربو هذا وحن قبضته أدو هذا رمش ولي قافدي ولي قاب تشوب لكن وان إيمانية أفر سنة جوجية سيدي ويا حالد وان تجية أفر سنة كلام يتكلم إيمانية وان تجية حالد وسيدي وان تجي هذا أفر سنة كلاتيمي وان تجي هذا سيدي ويا حالد هذا الرجال ما قبلك أنه كمان يجري كرنو رنتا إلهي نقول جعليه كم يجري كرنو كم يجري كرنو وان نقول في رنتا إنتاس كم يجري كرنو كم يجري كرنو أفر سنة كسته وقت إنه نقلهم كم يجري كرنو هذا الرجال مستقبل إيه أمد بان ربنا مستقبل إيه أمد بان ربنا إلهي كبقى أو كيابة أما وحقبته ودده وحقبتك اللهم رانا ومداس أنا دين شيء أدون كده مؤمرة دتفي عن أديكسو دتك سومالي دتك كفاءة وقول في عن كنسو هذا وحقبنا يسو دتك في عن لطشو أديك هكاكو أناتو ومد الصوماليات كقيب قلي صوصار ترينكا صوصار ترينكا كله صوفوشو مقرت هكولو أنستو إيجا قبنا يا دتك سي إيجا فرصة سي نظامك أوجح إيجا قبنا إيجا قناع صناعي دد كرتلوي دد وحيبين كروي دد أدونك فرنا يوي واكاس دبي بكش قيستا سو أفريقيا كش قيستا كينيا كش قيستا ميرو بكش قيستا يا أوفر وسمي نظام كودا خلاص نظام هو فن وسمي كربشن كلا در والتاريخ رزاق وقل تاريخ ما تقولي كرتا ور إذا كان إذا الله ربنا إنا تاريخ ذا نمن كنا المدحوين يا شا إذا كان إذا الله ربنا والله الذي لا إله غيره إنا مدنا حسد أوهن وحمان أوهن لكن وحن قدرنا وقد يضر كان واي ضل كان محل وقبتي هذا إذا نحب قبل وإذا شجنا وجهنا إذا كسرنا مرة إذا كنا حينه هبا يراته هذا عي إلهي بان أورس تاجنا بريتهم إذا كجننا جينا يعني مثلا نار بعد نوع هيسان إذنكم مثلا جنة نوع هيسان من النوع هيسان لبلا إلهي بهيه ساس درتاد إذن كمان قبنين رنتا إذن شيءنا ما نوال بعفر سنة عصمنا لقلهم يو مرة من هذا الريال هران نقلهم السن انت سنة نقلهم من السن 30 years 20 years of our life بعد تجي شيلك يجي بقى جبوبي يجوا ولي كجرة دمبسك ولي فدي أي جبوبين عرور تيجي بقى جبوبي يجوا ضلهين وقحوتيه أي جبوبين إذن كان صوت الكوات إذن كان صوت الكوات هذا نتصل هيدين وترينك إلى السرعة سنة ربعين إذن سمي أنا ديه لهيدين هل سومالي إذن كما هرين قبل الله سفر لهيدين بل كا سفر لهيدين وضدين كيسا سفر لهيدين شقوين كيسا سفر لهيدين معاك القيبية ضدك سومالي وحك القيبية بجرين وضد قرابة وضد ترسا ضد طلعوا مركا هذا الريال نقد داية ده كفاية واي نقد داية إلى ما يكون دارين نقد داية هذا كان ما مقل كنا عنك وحب الله ما قبنكر وحب الله ما سمين كرو هل سمين واي مستحيل بقى وحلقة سمية دتك ميل أنا وحب جرين بقى وحلقة سمية وأدونك كسمية مد بان أوسو قاعد دونا وأنا إذا توصي دونا هداد وحمق ليسان أو وحلقة ليسان سمية أو كفى إذا يستأذنكم ساسان يديكوا شيء جاي قبل كجبلة هوسة إسكدا وما بهني جبلة اللباد حتى ما أمرك ماشي كتاجنو وما باهنين جبلة دحالنا حتى أباهنين جدادنا أباهنين شغل الحصان أباهنين حمر بعضنا أباهنين وحكلا أباهنين كشقي ماشي أجوكت كشقي ضد كذا النولي أدوك كلنا أفرو حكوي مالان هلا شقيه بيرها بير عنتظر ضد كسيه مال جلي وضل أفر أدس نبت قليل أصمي هلا قوة ذي ماذا هذا القوة صوت ومرتنايا هذا واحد بريس طبعا شيلنا الميراث كبر بريس هذا الرجال وإلهي كبقى وإلهي كيابة كرسي اللي نكون هستنا كرسي جينا مسؤولية دي سان أجنها ما بين اللي كيوضع على الرأي لكن أمضى عن قبطة هذا أوقبتان أهلا وسهلا قفل بعدين عود عيا والسياسة ده واحد إن كسر ده أرداية بين الناس أركه ما حد عيدتكم مركي درجان أو دقالة هلان أدونكم دقالة وسياسة ده سود أرداية ما أركيسان سو ما أركين دتك مريين كدتك إنجليز كدتك تدير بها سياسة دان أردا أو درجيو دتك كلكم مشغول سنة بقى ما بدوني يعني بهدي لي هقلنا ما مرة بقى ما حد عاي نلاش يصير راح هو هستا مركز دتك نول أسمية أنا أساسا إذا لنا كرسي أنا ولي هاي سو أدر واحد كو هاي سنة يسا اختيار كدت كان يخدم دودي أديك جود لكن هذا بقى مسنتهي الباب صار كوسو شيء أفر سنة كهر صار كوسو شيء بعد ركعتين كجتكتو هل كيلومتر ما هذا نودس هل سوتال ما هذا نوصلين هل شيء ما هذا نتاجن أو مجعو كوارو
bal keebaa sheegi kara madaxweynaha maantana waxay kugu soo meeraysanayaan dowladdan meel foogaa laga keenay xagga laga keenay shirar iska daba wareega iyo siyaasad iyo musuqmaasuq iyo maxaa kale maxaa noo sheegi kartaa meel foogaa laga keenay maxay meesha foogaa laga keenay isbitaallo maa laga keenay jaamacado maa laga keenay ummadda wadooyin ay u samaysan maa laga keenay xagga laga keenay warshado maa u samaysan maa laga keenay khayraadkeedina u soo saartay maa laga keenay badaheedii iyo xoolaheedii in laga faa'iidaysto maa laga keenay xagee ka keenteen mid walba waa yimaadaa isagoo sideedii buu ka tagaa maxaa ku soo kordhini marka naga daaya ciyaarta nimayo ilaahay baa khayr idin siiya naga daaya ciyaarta bahashaan annagu ma rabno idinkumana haysano laakiin dadka saa u dhaama ummadda saa u dhaama waa na disheen na dilate na baabi'ise ilaa goorma qurbo ku noolaanayna annaga iyo carruurtayada iyo dadka iyaga dadka Soomaaliya ilaa goorma qurbo ku noolaanaya billaahi calaykum naga daaya hawsh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته